هديدات كغر شركيو وما حتى والله قدقين شاحيل كنا روح وديران ميزان وغين كدرين ظروف تيون ولوشاداك لما نادن اسكو ديدان حالكوغا مديدايين لبدا اسكو دوبان نامين كودغا شحدود هادان كلمي لابو هشين شعيل كان لو درنين وروفا تاغان إيو عصري بدوني دي لحالين dulqaadka ayo sidaan duusha kugu sido haddaad daacadigu tahay dhexdayna dabka ka shidan kuwii daaraa ku guban dhexdayna dabka ka shidan kuwii daaraa ku guban may macquul mana dhici karto sidaan maxaana dhici karin ii sheeg wax walba way dhaceen ninkaas waa dilaa dhegayso adiga ma ogtahay ninka hadda meesha uu ku haayo gabadhaada ninkan la yiraahdo cali muxuu dadka u laayeen ii sheeg bal yaa waa ragu laayay adiga maxaa ku hadlaysaa kooskan adiga ma maqashid miyaa ninkaas waa dilaa madaxa loogu jiraa hadda ii sheeg waa ku baryaa gabadhaada teleefonka markay kuu soo dirtay makuu sheegtay meesha ay joogto maya waayo haddaad ogaad meesha ay joogto si dhaqsiha igu soo sheeg calihay maxaa dhacay wax ma soo ogaata adiga maxaa la ogaanaa odaygaas gorof waay mar horeyaan kuu sheegay wax walba beri ayaan arki doonaa arrintan adiga haddii aad ka harto anigaan ka hareenin anigaaba isaga dhaafeenin ilaan arrimahayga ayuu soo fara gashtay saas soo maa saaxiibkay caankaa wey adeer ninkaas hadduu isku malay inuu khatar yahay uu waxuu doono samaynayo uuna mugdiga ku qaraabto anigaa waxaan tusayaa mugdiga sida wax layskugu fahansiiyey mana dhaafaya ninkaas meel kasta uu galo may fahantay haye urursame allah is arki doonaa nakaxay soo fuula gaarigeedika waaw labiska uu ku soo saaraya waad mahadsan tahay dharkaad ku bedelinayd xagga sare ay kuu saaran yihiin mayme hadda waan daalanay beritaan raadsanaa dharka harama kaale waxaan ku weydiinayaa adeer inantiisi maadayna anigii iyada iska cabir ayaan nahay sheekadaas waa sheeko dheer mar kalaan kaaga sheekaynayaa orod hadda waa daalan tahay naso aab waxaa laga yaabaa meelaa saxad inuu kuu diyaariyo haye waaye adigana iska naso seefdaa ninkaas arrimihiisa wax ay kaaga sheegtay miyaa jiran ninkeed ka hadlaysaana ninkii ay dhehaysa wuu ii badbaadiyaan ka hadlaya waxay tiri ninkaasi waa nin aad u wanaagsan aniga dartii ayuuna dhaawac u yahay wuuna i badbaadiyey ii wad sheekada dee waxay kaloo igu tiri waa nin sheekh ah sheekh ah aha maya isaga ma aha ninkaas
xalay oo dhan wuu qarweeyey gabirtii xalay dhan aad soo jeedi miyaa ma seexanin maya maxaa yeelay aniga hurda ima ahayn in yar uun baan seexday kadib waan soo toosay daawadayaal misaalkan aad daawanaysaan waxaa lagu tarjumay studio asal 24 TV eenaabe cali inankiisa hadduu dhintay xaaskiisina meeday taas ayaan isir weydiiyo kaliya maadaama aad soo weydiisay ana ku sheegaa gabirtee wax dhimatay camalka soo qaad id naftirkeed maxaa sabab waa kan haddana qarowgii ayuu bilaabay hasa sheegay sabab wiilkayga muxuu idinka galabsaday ishay waxaan rabaa inaan ogaado wiilkayga muxuu idinka galabsaday wiilkayga wiil yar ayuu ahaa bedelkiisa aniga maxaad ii dili weysay sabab aan wiilkayga ku dishan sabab cali haddaad riixun ku jirta ka kac waa shaydaan خندق وخواتي مسكينك علي قولي واديني هسه مستشفك وجيها انت سان عادي ماهي اسبتال ما باني saaxiibkayga feerda ayaad waxaysaa wax walba oo baanta isaga keenay oo digu daaweyn lahayd isaga telefonkiisa wac قرنتو اسك هاجاجيسا انا كان هاي بشك برش حاجات صعبة سايشك انا فرماسيا ما حدا حينا فرمشيها ما حكى دونيسا شعليا داور هذه ويا هاي مرحبا هذه ما بلغ سان لو أرض مدينة إلى أحمروين سان سو أرض هو داوينكaaga waad mahadsantahay maalin wanaagsan باي waxaan rabaa daawooyinka cirbadaha kuwa dhig joojinta faashad kulli waa u baahanahay laakiin maxaad ugu baahan tahay in ii sheeg caliya ii soo dirsaday cali maxaa ku dhacayna cali asaga ma dhaawacay may wax weyn ma jira anima ii sheeg in wax ku dhacay laakiin waxaas igu yiri qof u sheegin arintan هاي وانكو باهنا هل مر إنام بحر وامي ما كرتها دليرو بالكالي هل كان يي ما ذاك الوحير أي محسوسة إذا أو شيقين علي ما أركن أنا يا مد مجرين وبورن أو صاحب كيسا فيرد ما كادلو سا فرمشي سي أرداي علي داو إيسو درس داي موجي أنا فرمشيها أبوك يلا حقسك يلا انتو سن فرمشيها كبحي وانا مقبنا تم قبل علي قامتان قوينا هنا كين لكن عيال معلمنا محاول تاغتين ودا اسكبه هاي هو قبهتان كرت اوكي كنا قدر أنا قام كراعة أقصنا وط معقول ما هن علي محاسيري كلجا إيمو يا أخي أسيق اسمه ضيق رواه بال أنا قوي بهيه وأنا كراعة مرك وقسم دس لكن علي gabadheeda qaar sheegay waaba isoo orsiisay يا وين أنا دق يا جرت هو وان بحايا
هاي صباحي نكن لكن gabadheeda ii sheeg meesha u socotid hooy waqti aan wax kugu faansiin ma hayo nakanadi مرحبا أنا مري gabadheeda صع صار gabadheeda adiga wixii sheeg miyaa iska bixaysaana gabadheeda yaqa wixii sheeg ألو خير لما تجري أنت علي ما يتجن علي كلمة إيه ويدينسا قبل هذا ما ويدينسد لبضاد يكون مهمة ما يا أنا ساز مكاد لا يا وعير دي لو ويدي زمركي وحناقي سا حناقي اسكيري أنا جو حلا يا بنهاي السبب تعذق كلنا ولا أنا ما أولا مساعدك أولا إلا أي هذا أنا جو سويدينا يا وحبك بقى يا سيدان هذا قصيص عد قبل هذا أنا أعذق كراعه idinka halkaan nagu sii sugo haddii aan isdabagalno dadku way naga shakinayaan waxaan rabnana kama soo ogaanayn marka halkaan waa inaa nagu sugtaan waa run adigna meeshaan sii joog maalin wanaagsan ilmey maxaa nii qabtaa wax yar ka hor waxaa lai sheegay friidi inuu meeshaan joogay aawe xaguu ka baxay adiga istooyan cali ma arkina ninkayga gacali ninka ma xasuustid miya waa ninka habeenka anakoo marayna masaajidkana weydiinaya cali asiga waaye haddaan soo xasuustay anigaba haddaan idin soo xasuustay aye mideeda kale habeenkaas gabadhiina xataa waa idinla socotay gabadhiina waa takhtarad soo maaha nacam farmashigaan iyadu u furan yahay soo maaha nacam maasha allah waa gabar wanaagsan aniga hadda si cad ayaan wax idiin weydiinayaa ugu horreyn aniga iskiin baro magacayga waa duuliye saaxiibkayna magaciisa waxaa la yidhahdaa xaliye waa nin ganacsada sidooda kale aniga iyo isaga iyo cali arrin ayaa naga wada dhexayso fardina sidaasaan idiin weydiinaya haddii aad nacaawin kartaan nacaawiyo waa iga codsi maxaa rabtaan oo idinka caabiya ii sheega anaga waxaan rabnaa keliya gabadhaada inaad u wacdo meesha ay joogaan in aad noo sheegtaan gabadheeda faaraas maxaa soo geliya wax yar ka hor ninkaaga sooma dhihin ninkii iyo gabadha ayaa israaceen ninkayga wax ma oga asiga arrimahaas waxba kama jiraan hadda aniga okaadi aamus naga raali noqod haddaa khalad noo aragteen markaxay adigan waaya mac salaama sidoo kale mac salaama adiga ganfuuriya markaan waa soo badbaadisay aniga si edaable ila hadalaan ku dhahay sawaye aniga xishmay sawa ninkaagan ahay ay gudeni si qaldamaan kula hadla aniga ii sheeg dadkan waxay damacsanaayeen adiga ma fahansan tahay cali ayay rabeen inay raadraacaan farmashiyaana sidaas ayay u imaadeen aniga maxaa naga gadisay dadkan dad oo waxaa ganacsata waay ganacsata aday ganacsata ayaa ka hadlaysa dadkan qaabkooda iyo sida u hadlayeen waxba kama fahmin maya wax ma fahmin weligaana wax ma fahmayn sidaan la ahaanaysaa adigii gabadhaada isku mid ayaatiin iyadana way wareeraysa waxba ma fahmaysid masiibada nagu soo socota la ilaaha naga xijaabo dadaa wax fahmin ayaa meeshaan buuxaan iyaan ka xanaaqa aniga adigaba hadduu sidaan u dhaqmaa gabadhiisana sidee u dhaqmi doontaa nahuza lagu yidhi maxay tahay dhaqanka igula dhaqmaysa dooley farmashiyaha markaan galnay nin waxaad iska dhigaysaa akhyaara aniga nin mooryaanaad iga dhigtay xaliye aniga marar badan ayaan wax kuu sheegay waxaan ku dhahay markii aad dan leedahay xoog waxba laguma raadso ee deganaan ayaa wax lagu raadaya sida waxa aad rabtay aad u hesho degnaan ayuu ku leeyahay fiiri degnaanaad leedahay aniga ninkaas waxay uga afduubtay gabar aan jeclahay waan sugaynaa wayna imaanayaan ninkaas ciwaankiisa haddii aan helno si toosaan ugu tagaynaa isdeji oo keliya hay mudan xaliye sidee waxu jiraan halo tuusha xaggee joogtaa xaafadda gurigaaga farmashiyaha u dhow ma taqaanaa qofka iska leh iyagu ayaa iska leh maxaa dhacayna
gabadhaas way ogtahay cali halka uu joogo wayna iga qarinaysaa waxaan rabaa inaad u wacdo akhbaar iga soo siiso waya xaliye waan sameynaya ilaa hadda qandhada ma soo jebin feerdi muxuu la soo habsaamaynaa habkade cali cali wax walboo dhacay aniga ayaa u soo wax walboo dhacay cali cali muxuu ila hadlayaa bacali sheeg انتي وسهد لا حد عافمة وسهل الساعة علي علي ولا شيء علي waxay igu dhahay kaliga imaw laakiin hada ila socota sanyeelahay marka bis hee feerdi bis waan ku baryaaya gaariga inta soo korin ilaa hadda halkaas eray ay ku soo celcelinaysaa xageen ka baxaa hadda midig u leexo dhaawaca kaligiisa disdhayi karin waxaas idhiilaa baawarka soo qaado gabadhana soo wad laakiin guriga waa imaan waa kana waxaas idhahay qofa u sheegin halkaa miyaana guriga waa ko soo dhawaada cali qandho xun ayaa saaran waa xanuunsan yahay garabkiisoo dhigoya mujadido dhinaca garabka waa halkan adigoo raaliya xoogaa miga saka kartaa feerdi boorsada ii dhiibal xabad miyaa ku dhacdayna cali dadkan dhibaatada ay ku geliyeen maxay tahay balaayadan xaggee kaaga timid waayahay sidaas haddii ay tahay diyaga u sheeg inaan aniga u imid waaya anigaa u sheegaayo mahadsanid gabadheeda deego mar walba ayaan u sheegaa aniga waxaan dhahay gabadhan ka leexo waa kana iyadana way daba socotaa haddii kale dabeecadaheedoo kale ayay yeelanaysaa hadhow camna dadka aniga ayay igu sheekaysanayaan mar dhow wuu soo naaxayaa الحمد لله ابو اذى مهد له marwa diego cali sidee tahayna caafimaad ayaan kuu rajaynayaa mahadsanid hadda waa runa waryaa saaxib gabadha maxaa u soo dhibtay oo halkan aad u keentay waxaa waaya mataqaanaa garabkee ku dhigays mogtaa eeda hadda dhiig badana kaa dooy anigaa ku madaxadayga halkan inaan imaado mahadsanid laakiin way soo dhibtee maxay tahay dhibaatada ka hadlaysid cali run ahaantii aniga adiga waan kuu cabsaday waxaa laga yaabaa daacadnimadaada inay ku keento dhibaatadan laakiin dadka aad adiga naftaada u huraysid marka hore waa inay istaahilaan adigna aad ka fiirsataa waaba ilaahay mahadiis haddii ay xabadda ku sarto oo keliya oo aysan gudaha kuu gelin fardiyo inantan waa inaad farmaysigeedii ku celisaa haddii kale reerkeeda u warwaraya aniga ma wadagdegsanin soo ma ahanna fardi aniga intaana soo bixin kahor waalidkayga waan wargeliyey kurbada iska daa marka
cali aniga sidaan haddii aan kaga tago waan kaa murgaaya maya inaad ii murugto looma baahno waa isku filanahay dadkan ayaa garbeyga taagan idinka ordaa guryihiin isaga laabta waayaha cali cali aniga waan baxayaa laakiin beri waan soo laabanayaa maxaa ila waxaa loo baahan inaan mar labaad ku dhayo anigaa u dhayaya ma garatay marka adigana ha werwerin adiga dhayitaanka shaqadaada maba ahanba awoodna uma lihid waxaa laga yaabaa bakteriya inaad ku reebtid maya ha isoo dhibin arrinta beri waa ka wada hadlaynaa okay waayaha cali sii socon dheh cali daawooyinka halkan ayaa kuu dhiga cuntada markaa cuntid kadib waa inaa ayagan cuntaa cuntada anigaa u karinaya markaan u kariyana daawona waan siinayaa adiga halkan ma joogaysaana maxaa dhacay waan joogayaa ilaa uu ka caafimaado maxaa dhacay farda ayaaba joogi karay aniga adiga waan israaxaynaa waan bixinaa adiga family ayaad leedahay way ku walwalayaan maxaa dhacay reerkayga ma warwarayaan waayo way ogyihiinba waayahay awal bayaa isla wareegto walwalaaya naakaali soo joogso maxaad hoosta kaga xuraamaysin hadalka kor igu qaad fiiriya saaxiibkay gabadha way daahsantahay orod waayah soo socaya maxaa u suran tahay hayhay cali caafimaadaan kuu rajaynaa daawadayaal misaalkan aad daawanaysaan waxaa lagu tarjumay studio asal 24 TV मोहब्बत से नहीं वाकिफ बहुत अनजान लगती हो हमें मिलना जरूरी है हकीकत ना समझती हो कोई कैसे समझ पाए किसी के दिल का अफसाना मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना अगर इकरार हो जाए किसी से प्यार हो जाए बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझाना हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना